هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. haddaan kasoo bilowna masaajidkani hadda waxaan u malaynaya inuu jiro 2007 baa la asaasay. wuxuu ahaa masaajidka ugu horeeyay ee Soomaalidu ay ka gadato London muddo yar waliba gudaheed lagu gaday. masaajidka markii awal muu jirin oo daartan waxay ahayd guri bay ahayd. masaajidada kale oo dadka islaamka ay hayaan oo iyaguna yaraa caqabado badan oo saas oo kale ah badan baa isu yimi. tana walaalo baa isxilqaamay waxay isu xilqaameen in ay raadiyaan meel xaafadan hays ama baroogan heelan doon ay ka raadiyaan. dad muslimiin oo aan la tukan jirnay laakiin maamulkooda iyo imaamkooda wax walba iyagu ay lahaayeen ciidaho kale inay iyagu ciid leeyihiin maana inaanan joyce u lahayn inaan masaajidka ku tukano haddaan rabno anagu inaan ciidno xaafadda dadka degan ee Soomaalida. dadkaygii Soomaalida waanu shirnay oo waxaanu war waa dhibaato war maxaynu sameynaa war waynu raadsanaa meel aan ku tukano. masaajidku maadaama uu ahaa masaajidka ugu horeeyay oo mesela TV-yada hadda TV ay ku jiraan masaajidadu wuxuu ahaa masaajidka ugu horeeyay isagoo barigaas xataa maysan jirin waxyaalaha live-ka la yiraahdo ama basal xayga la yiraahdo. clip baanu geenay clipkaas waxa ku qornaa marka informationka masaajidka iyo telefoonada lagala soo hadlayo wadamada lacagaha laga soo diri jiray wax kamid ah wadamo aan islahayn Soomaaliya joogta kamid ahayd si ay dadku u rabeen weeyaan. baahida keentay in la gado ama la iibsho ama dadka loo raadsan waxay ahayd bulshada Soomaaliyeed oo aad u soo badatay dhalinyaradii oo dadkii oo ciyaalkii halkan ku dhashay oo waaweynaaday oo doonayay in ay helaan meel ay dadka diintooda ku bartaan ama Ilaahay ku caabudaan. When first opened, I used to come from East London from here to East London, travel for the Duxie and mashallah the mosque, and I got to know a lot of new people. markii dambe dadkii baa batay marka wuxuu noqday masaajidkii cidhiidhi isagu ulidiisu wuu yaraa markii hore iminka waa la weyneeyey waa tan dee la kordhiyey labada dabaqadood laga dhigay masaajidka. Soomaalida markay iskaashadaan markaan wax isla qabsano inaan danaheena wax badan ka bedeli karayna aan u qaban karayna ummadeena waxyaabo badan oo loo baahan yahay. runtii intii aan hadda masaajidadan ka shaqeynayna Quba iyo Daarusalaam ummadeena alxamdulillah wax badan baa iska bedelay. لا إله إلا الله. bishu maanta waxa weeye 3 bishii 8 2013 waxaan hadda u dhaqaaqaynaa iftaarkii galabta oo maanta ah 25 Ramadaan waxaan u soconaa Watford meel yiraahdo waxaan ka doonaynaa shoppingkii. cuntada everyday waxaan diyaarinaa from salaad duhur ilaa iyo maghribka ayaan diyaarinaa maana waa in alaabtiyo nadiif ah duhurka kadib la qaado maqaayadihii loo geeyo la soo adeego. rafliga caaw maanta kala xisaabtu mala maanta kala waa maanta iyadoo fasaxa ay tahay maalin sabtiya oo caaw xataa dadku shaqeyneen
waxaa noo soo afurta ilaa 250 wixii ka badan especially cuntada la cunaya afurka gabdhaha sisterka ayaa sadaqaystay Quba khayr xasanaad Allah ka siiyo ajar badan Allah ka siiyo iyo horta gabdhaha walaalaha ayaa waxa loo sameeyay xafladaas oo ka helnay lacag adiga aftaarka ah marka hore ayaa noo keenay jiray sambuusa iyo burka hadda sanadkii hore iyo sanadkan baa waxaan isticmaalnaa xaflad bay qabsadaan muxaadarooyin baa loogu sameeyaa lacag ilaa 6 kun naga soo gashay xogaa jajaba kuwaas gabdhaha maqaayadaha u qaybinaa 3 maqaayad 4 maqaayad waxaan arko 3 maqaayad siin jirin laakiin sanadkan ilaa 5 maqaayadood laga qaatay oo afurka noo keenta raashinka noo keenta cuntada aan keenno waa macna waxay gaaraysaa ilaa 30 kilo bariisa iyo ilaa 300 oo chicken ay gaaraysaa oo waliba dad kale qaarkood ay wax kala soo daraan timirta Sacuudiga noo keena sanadkan hore Sacuudiga rag muxsiniin soo dhibto Sacuudiga lagu soo dhiibay timirta waxa sadaqaystay nin Sacuudiyana Ilaahay khayr ha siiyo oo hooyadiis oo dhimatay una xare oo u sadaqaystay beer u leeyahay oo ka soo dhiibay Saudi Arabia waxa uu soo dhiibay ilaa iyo 2 tan oo timir soo dhiibay maanta haba yaraatee wax yar ayaa ka haray number aad u yar ayaa ka haray marka imika hadda waxaan u baahanahay maanta kale waa soo iibinaa wixii qudradan banaanka u baxnaa wixii kale hadhow dukaamadan soo marayna nadka soo marayna waxaan soo marayna taskan soo marayna waxaan soo marayna suuqii waxaan turkidan soo marayna murqaraha ka soo qaadayna shoppingkii wuxuu qaataa wiiran 3 hours 4 hours before intan gaarin afurka ama dhanka soo adeegno dhalinyaro fara badan oo volunteer ayaa masaajidka ku joogta oo aad fara badan khayr la siiyo waxay bilaabaan hawsha marka salaada casar la tuko 6 o'clock afurka ayaa la preparation la bilaabaa ilaa 2 to 3 hours ayuu qaataa in la diyaariyo wixii soo dhan cuntadana waxaa la keenaa 8 o'clock ama 7:30 meelaas ayaa la keenaa ayadana waxay qaataa between 40 minutes ilaa 1 hour ayay qaataa sida lagu habeyn lahaa dadku marka salaada maghrib la gaaro ayaa loo cilaamay inay hoos soo degaan jamaacan ayaa loo afuraa waa la yaabsan runaantii marka artida loo afurayo laakiin waa arin sunna ah in cuntada la wada cuno oo la wada afuro dadkuna waxa ayaga ayaa isku dardarsaday masaajidka haba yaraatay waxa uu bixiyay lama arko masaajidka serviceka ayuu sameeyaa kaliya laakiin dadku ayaa contribution sameystay ayaga ayaa jeclaystay arintan salaadooda jamaacada ay tukan every salaad masaajidka uu buuxaa taasina waxay ku tusinaysaa meesha maartay nidaamka iyo systemka ka jira laakiin haddaan afur la sameynin oo suxuur la sameynin waxay keenaysaa taas in masaajidka uu empty noqdo qof walba uu gurigiisa iyo reerkiisa carruurtiisa iskala joogo dadku dabcan reerahooda carruurtooda way aadaan laakiin masaajidku waxay u yimaadaan jamaca ayay u yimaadaan walaaluhu quraan ayay akhristaan every single day masaajidku waa camiran yahay taasina waxay ku tusinaysaa khayrka faraha badan oo meesha ka socda Most of my time I spend here in Quba. And I come here after school, often to do studies. Even when I come from a ma'ad, I do my studies here as well. I hang out with my friends there. We even play sports in the masjid. We organize different events for the youth. So I think Quba just made my whole life pretty much quite fun. And every day we have a new challenge, we have a new activity to do. gabdhaheena iyo inamadeenna waad aragtaan waagii hore xabsiyada kaliya baa lagu guri jiray laakiin alxamdulillah hadda in badan baa masaajidadii ku xidhan in badan baa ogsoon diintoodii waajibaadkoodii la socota waxyaabaha looga baahan yahay mas'uuliyad ahaan marka alxamdulillah runtii Quba door weyn bay ka qaadatay badbaadinta ummadda Soomaaliyeed ku nool qaybtan London. As a youth, it creates a space for me to study, to know about religion. Sometimes we hold our Quran lessons in Quba, and it's the place where we come and meet up with our brothers. We used to have durus here, we used to have hadith lessons here, we used to have durus on Salah, Salat al-Nabi, Arba'in Nawiyya, we memorize here. Lots of different durus we used to do here, so alhamdulillah the masjid was active in terms of durus. If one looks at the events we do here in masjid, you would imagine that there will be meetings and only the seniors would be attending these meetings. But actually it is most of us actually that usually attend the meetings and organize the theme of the lecture maybe and what speakers will be coming and every single detail to it. So that shows you that they give us a lot of access to different fields in the masjid and they allow us to make many decisions. Obviously, when we're at home and when we're busy like by ourselves, we go on YouTube and we watch reminders and talks on YouTube. So obviously, we tell the shuyukh in the masjid, and they really strive to bring them shuyukh because they know that influences us
and it encourages us to do good. So when we tell the masjid, they really strive to bring those specific shuyukh in so that we can show the whole society, and that sheikh specifically would try to influence with his way of speech the whole society. When you see on the day when they come, the mosque is absolutely packed. All the young brothers, kids, elders, everyone is there. Alhamdulillah, it brings all the Muslims together. dhalinyaro hadda masaajidka taraawiixa tujiya ama tahajjudka tujiya waa dhalinyaradii markii masaajidkan la asaasayay ama yaryarka ahaa ama suuqa taagnaa ama aan haysan meel ay ay yeeshaan maanta waxay joogaan masaajid ay leeyihiin taraawiixda iyagaa ka tujiya salaadaha kale iyagaa ka tujiya tahajjudka sidoo kale iyagaa ka tujiya waxaad arkaysaa marka waxay dareemayaan iyagu inay leeyihiin oo ay tahay masaajid ay leeyihiin. This year it's been many youth, the imam, and he's given an opportunity to the youth to lead a lot. So the Tarawih will give you a lot of rak'ah to lead. Tahajjud same as Tarawih as well. So it encourages the youth as well, and it gives them bravery as well to later on lead salawat. For example, during Eid or during Christmas, we invite the youth to come over here at night time, and we organise different tournaments for them, maybe even video game tournaments, and then we have Quran tournaments here, and we have different programs for the youth to be in the masjid and to incline them towards the masjid. We want to celebrate Christmas, so they create like little sleepovers, they bring TVs out, they play PlayStation, Xbox, but during the fun we also have little small muhadaras at night time, talks about tests, like fun quizzes and stuff like that, which is fun because most of the youth outside would normally go and do other stuff, maybe some bad stuff outside the mosque. So this helps them bring it inside and keep them safe from danger. We do, sometimes we play FIFA at sleepovers, sometimes we play table tennis, sometimes we play football, sometimes we play, gymnastics, reading Quran, hadiths, and loads of other stuff to do with ibadah and fun. This is like a place for the youth to like sometimes socialise in many ways. For example, at times we have sleepovers where we can just youth where we can combine together and socialise all at one time. We can have fun, we can read Quran. There's always a time for something here at Quba Center. Also, the masjid yearly holds muhadarat. For the Christmas, it holds muhadarat that go on during the Christmas holiday and in the Easter and in the summer as well. But then also between that as well, in the half term, there's little muhadarat go on. They bring various mashayikh from within the UK, some outside the UK sometimes. So mashallah, the masjid is active in terms of muhadarat and in terms of working with youth. There's also programs they do. They used to do football, regular football that happens weekly. Lots of sports activities, lots of activities that the youth can do. It was a trip to Nottingham for 3 days. So basically, the brothers in the masjid, there was about 20 of us. We got a coach and we all went to that event. And I remember when we come back, we missed it so much. Like, it brought all the brothers together, and now that we're back, the love between us has increased. We went to a trip in Telford where we stayed there for 3 days, but this one, it was different from the other trips we've done because it was a more active one. So we had activities going on, like there was quad biking going on, paintballing, archery, all these different daily activities going on there. It was in the countryside, it was camping, more like camping there. MashaAllah, it was great. Allah subhanahu wa ta'ala, He surrounded me with people that encourage me to do good. And the people that encourage me to do good, they tell me to come to the masjid. So personally, I don't think there is any difference between me and the people on the streets because it's just our friendship. Our friends are different, that's it. And they tell me to come to the masjid, and that's why I'm so tight to the masjid because all my friends are here. Alhamdulillah. من يريد الله فيه خيرا يفقهه في الدين. Like, translate that, and if whoever Allah like wants the best out of it, He makes them understand the deen. So there's no big difference between us. Allah, subhanallah, He chose us to come here. And most people, they assume that the masjid is a place which is quite boring and just all people are around sleeping on the floors and etc. I think specifically for Quba it's much different.
It's actually much different. It's a place where you can come, you see many youth your age, and you can just be yourself. You won't be judged on how fat you are, how skinny you are, or where you came from, or came from, anything. So there's a bunch of weirdos in the masjid, but it feels like a brotherhood. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمده وكاين شهر شغل ثاني ما نكثر نشوفك ولا سمايا لكن هذا انت ما انت وبعنا صوغات نروح بعض حولنا الفرقه which is my biggest motivation. I want him to do the work, and that's what keeps me motivated. Even though we got a lot of youngsters to help us this time, alhamdulillah, time is running. Today is Saturday, and they've got lectures in upstairs. Youngsters and like Abdurrahman and Darush, they help us with this. You will see what we're going to do. We're going to prepare for that for and inshallah. أنا ضحى نماطي في دينتي وحنا بعض النهار نماطي وعم بلعبنا استعارنا من كوب كستا إن نبنو أنت قفوا في السنة صار كسر سد شنية طبعا صدق قفوا سهر جدا صدق قفوا سهر جدا قارح نقنين سدية وقارح نقنين سجالية هل كان قوانا ونقضوطا إن شاء الله صدق طبعا عروض من شو فرسان دوطا مركا إنك هذا بلوجي وحاجة دونتين ده مركا دم مركا تمرتي لبنو قريه لا دغو بريسكي لا دغو بيه لا دغو ورحت بصوب حدون ذاك إن شاء الله أضع لي عانه من الشيء مركا شكل كاسة كل دينا راتو كل عانها وين استعمال أساس أخرى رامك أخرى وقدرنا فين توضع وكبدي مايو marka lagu daro afka laga xidhaya afka marka laga xidhna waxay noqonaysaa loo ruxaya marka caanihi kala dhigooda saas qurux badan caano ka cabay milig sheego aad u macaan oo qurux badan cabay qof kasta waxaan dhignaa lix saf weeye saf kasta waxaan dhignaa afar caana dhignaa iyo saddex caano sano heli karno wixii soo haraa marka dambe isku dardarsanaa laakiin hadda tan sameeynaa qof kastaba iyo qof kastaba iyo caano kastaba soo qasayno saas waxay ugu dardartaa milig sheego تمرت لك بليز I'm making the shaft outside. Yeah.
soo dhaba wax masaajidka jooga ma jiraan dadka walaalaha ayaa wax ka shaqeeya masaajidku anagu waxaan nahay dadka masaajidka shaqeeya laakiin waxaan walaalaha soo sameeya ayaa mataqaanaa wixii keenana anaga dhiganaa waan isku daraa waxaan kalka waa shurfad weyn min walaalaha keenay waa dariska ah dariskuu yaallaa wax kasoo yeelaan way kuxugi doona insha allah عاوز صحبتي سي صحبتي بريسك Anything in the fridge. Every cup. Yeah, when it's on there, put it in. But we're here. Take a 10-minute break. After that, take a 10-minute break. إلا هذه الله بقول هذا ورث السيسة على عن قري لكن ما أدري الله بقول إيمان إن شاء الله We are ready now, so inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We just push them one way so we can get everybody squeezed in the same way. Alhamdulillah, most of them, but there's a few individuals that always have specific position. But we let the other deal with it. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. We're making sure that people are quiet because the neighbours will get disturbed, and we've had many complaints from the neighbours saying that people are loud. So we made these posters to tell people to be quiet. Peace. Because we have to respect it. At the end of the day, you know, we live in a multicultural society, and we have to respect the other people, you know, like the other religions. We face many problems. There's no parking. You cannot park here. Alhamdulillah, they listen to us. Some of them they don't. So if they don't listen to us, what we do is there's a sheikh usually works with us or for the office, and he has the radio. Marka waxaan sheikh arintan waxaan ka qabanay marka dhinacaada waa you need to talk to them. Marka ma sha Allah soo diray sheikh uu la hadlaa. Horto inta Ramadaanka maalinta bilowday ilaa hadda ka shaqeynuna alhamdulillah dib badan waa aragnay laakiin waxaan inta xali karno waxaan
inta kalena shiiqda iyo masaajidka xaliyay ma sha Allah shaqo dad qaar waxa jiro oo marka anaga shaqeynayna dad oo noo maleeyay in oo lacagna la siiyo mise oo marka uniformka gashana ay arkaan nala yaabay dadka mudukadaan miya wax ma qabtaan miya midda ugu baaqa waxa waaye what we are doing is actually shaqo weyn waay because protecting every single person who masaajidka isku jiro ilaaha waxa protect kare as a you know as a security shaqada hayn intaas waay dadkana ma sha Allah horta dad weyn oo waxa jiro noo imaaday oo dhahay ma sha Allah shaqo fiican haysin oo noo duceey marka waxa uu sheegay dadka Soomaalida inay masaajidka ma sha Allah horta shaqaale badan dad badan oo volunteers waxay sanaa inta awoodo hada hal saacad haysid masaajidkeena waa qof iska lamana Ilaahay daraadis umo iska volunteer galay ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إن فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك كذبت قوم المرسلين إذ قال لهم أخوهم وقل ألا تتقون aad ugu dadaalaa yani mar walba in aysan dacwada isku ekaan kaliya dadka masaajidka soo gaara laakiin masaajidka duruustiisa iyo muxaadaraadkiisa intaba lagala socon karo adduunka meelo fara badan marka masjidku investment wuxuu ku bixiyay cameradan aad arkaysaan oo duruus every dars iyo muxaadaro iyo khudbo walba oo masaajid ka baxaysa targetkeena uu yahay waan ku dadaalno sidii aan uu that moment u capture garayn lahayn u qaban lahayn si aysan u noqon yani muxaadaro inta la dhageystay la iska ilaaway muxaadarada markaan duubno kadib waxaa dhacda in telefishinada qaarkood aan u qaybinay luqadda Soomaaliya ku hadla waxaa kaloo aan gelinaa YouTube-ka مثلا haddii aan numbers aan keeno muxaadaraadka aan gelinay YouTube sanadka hadda kaliya waxaa la daawaday in ka badan 195,000 oo jeer meesha bil gudaheed oo monthly hits ka helno ama dadkana soo booqda YouTube-ka lagu soo booqda ay ka badan yihiin 28,000 haddii la yiraahdo weekly ay ka badan yihiin 6,000 ay ka badan yihiin waxyaalaha masaajidka uu invest gareeyo waxaa ka mid ah مثلا raadiyahan gacanteeda ku jira waa digital radio raadiyahan gacanteeda ku jira waa radio u sahlaya qof walba oo local iyo qof walba naga fogba in microphone-ka masaajidka uu gurigiisa in lagu xiray oo kale uu noqdo yani markii la daaro microphone-ka masaajidkaba qofku uu ka maqli karo halkan sida مثلا aadaankii salaadii jamaacadii duruustii announcement-yaashii marka masaajidku kaliya xoogga ma saarin dadka masaajidka soo gaari kara oo awood u leh inay ku tukadaan duruustana imaadaan laakiin mar walba wuxuu maskaxda ku hayaa sidii uu dadka aan soo gaari karin masaajidkana aysan u miskareen aysan yani nicmadan faraha badan ee masaajidka jirta aysan u dhaafin
ardayda waxaa dhigta madrasada 270 ilaa 300 inta u dhaxaysa ardayda yaryar oo dhalinyarada iyo wiilal iyo gabdho isugu jira ragga oo iyadana casharro waaweyn ku qaata dumarka sidoo kale iyaguna qaybo kala duwan ah qayb gabdhaha yani teenage-ka ah kuwa waaweyn hooyooyinka islaamaha da'da ah intaas oo dhan waxay ku qaataan marka waxaan dhihi karnaa masaajidku wuxuu koobay dhammaan baahidii dadka meelahan ka jooga wixii ay u baahnaayeen Soomaalida ah ama aan Soomaalida ahayn islaamka ah baahidoodii qayb kamid ah ama qaybta ugu weyn uu daboolay mainlina madrasada waxa yaalaha aan dhigno waxa kamid ah Qur'aan iyo Islamic studies I finished the Quran and I'm now memorizing the Quran. Got a present for finishing the Quran, a HP Slate 7 tablet, that's it. ilmaha Soomaaliga ninka Soomaaliga ah macallinkaahu wuxuu ka qaataa waxbarashadiisa qayb aad iyo aad u weyn waayo fahamkii ama luqadii ama xataa yani jinsiyadii qofku markuu qof Soomaaliya ilmaha Soomaaliga uu yaqaan sida uu la dhaqmo isaga Soomaali laakiin qofka Pakistaanka waxa laga yaabaa iyagoo isku wax dhigaya oo mid walba dugsiga dhigayo Qur'aanka dhigayo haddana inay kala duwan yihiin qaabka ay wax u barayaan Qur'aanka higaada ay ilmaha looga bilaaba higaada markay dhameeyaan oo ay qoristii akhriska ay ku baasaan Qur'aanka ayaa loo bilaaba madrasada guud ahaan waa xaaladeedu waa iska fiican tahay marka laga reebo ciriiri iyo masaajidkiyo yar oo aan u saamaxayn duruuf ardadii sidii la rabay wax loogu dhigo waxaan rajaynayaa inuu noqdo iskuul islaami aan ilaahay ka rajaynaya oo ilmaheenu maanta meeshay aadaan ay uga kaaftoomaan inay masjid Quba marna ku tukadaan marna iskuul u noqdo islaami waxa weeyaan ilmihii Qur'aanka ayaa loo baraa maadaama aan wadan gaalo joogno waxa ugu wanaagsan oo ilmaha la baraana waa Qur'aan iyo salaada iyo akhlaaqda iyo aadaabta islaamiga iyo waxyaalaha basiga ah ilmaha marka sida loo weysaysto sida loo tukado dahaarada Qur'aankana waa asaaska madrasada mainly waa Qur'aan laakiin waxa ku jira ilmaha in laga dhiso akhlaaqda laga dhiso iyo maadaama ilmaha wadan qurba ay joogaan in macnaha say dadka gaalada ula noolaan lahaayeen ama ay la macaamili lahaayeen waxyaalo badan baa la baraa mainly lama dhihi karo waa Qur'aan laakiin waa Qur'aan iyo Islamic studies waa iskuul islaami oo sidiisa u ah meel runtii caruurteennii aan madraso ugu dhigi karayna aan ku tarbiyaysan karayna annagii aan ku cibaadaysan karayna ummadda yacni faa'iidada runtii masaajidka Quba laga helay yacni lama soo koobi karaya waxaad ogtihiin masaajidada wadamadan ka jira aan islaamka dadka dawladaha aan islaamka ahayn waxay qabtaan dawlad islaam shaqaday qaban jirtay bay qabtaan waxyaalaha mesela la qabto waxa kamid ah oo khidamaadka ah oo laga rabo in dawladuhu ay xaliyaan in mesela familada yani la isku guursado aroosyada hoolashan hadda aad u jeedaan gadaasheeda ay kala halkan oo kale iyo qaybta hoos oo kale in lagu qabto aroosyada waxa kamid ah in lagu xaliyo mashaakiladka familada problemkooda inaanu ku xalino oo aanu galno waxa kamid ah arrimaha kale oo bulshada inaanu ku xalino khidamaadka qabtaan waxa kamid ah jeelasha in la soo booqdo kala mesela waxa kamid ah isbitaalada in dadka lagu soo booqdo waxa kamid ah xaafadaha aan lahayn duruusta aan lahayn inaanu duruus u sameeyno waxa kamid ah inaanu soo booqano meelaha aysan dadka islaamka ee Soomaalida ay degan yihiin oo aan lahayn casharada aan laga akhriyin muxaadarada inaanu u soo qabano duruus dad u akhriyo inaanu u diyaarino madaaris xataa mesela in laga furo oo macallin loo raadiyo oo systemka loo sameeyo oo si ay carruurta Soomaaliyeed wax ugu qabataan marka khidmadda aanu qabano waxaan dhihi karnaa waa khidmad ka baxsan xataa yani degmada London ka deganahay khidmad ka baxsan ama service ka baxsan weeye oo ka balaaran khidmadii ay dawladda qaban lahayd oo dawladdu ay yani uga faa'iideyn lahayd ummadda ayaa masaajidada qabtaan maadaama aysan jirin dawlad islaam ah oo hawsha u istaagtay الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم dambe oo Ramadaan markuu bilowday waxaa la sameeyaa suxuur suxuurtana sidoo kale ayadana waxaa la isticmaalaa 30 kiilo bariis iyo 10 kiilo qamadiya iyo ilaa 350 lugood oo chicken legs la isticmaalaa marka arintaas waxay ku tusinaysaa meesha numberka jooga oo faraha badan wax ka haraha way yaraatay cuntadaas lama arko way dhamaataa ayadoo qof walba la siinayo in yar oo kooban hal chicken legs iyo waxa la siiyaa qofka in yar oo bariis la siiyaa ama in yar oo waxa la siiyaa maaragtay qamadiya ayaa la siiyaa biyaha sidoo kale numberka biyaha aan keenno waxaan keenaa ilaa iyo 30 xabo oo caagadaha 5 litir ayaan keenaa oo every single day dhamaada caanaha sidoo kale waxaan keenaa 30 litir oo caana ayaan keenaa every day saddexdii iyo 45 waxaa noo haray laba mid baa ka hadhay salaada halkan wax ku afartay dhinaca afkiisa hablaha ku jira hablaha halkan ilaa 3 bay gaareen bulshada waxay gaareen ilaa 400 halkan caawa keliya waxaa ku baxday dadka soomay oo mataqaana ku afuray maxay misaajid ku afuray waxay gaareen ilaa 400 kori hoos marka ilaahay mahad gaadho dadkan iyaga waxa la baxay waa jaarti misaajidkiisa yahay ku dhisan yahay udubka haweenka abayaasha dhalinyarada shaqaysa dhalinyarada gabdhaha yuudka noo taagan waxaad arkaysa ka shaqeynaya meesha dhan waxaad arkaysa waa wiilashii masaajidka u taagan yuudka masaajidka ahaa hablaha dhinacooda ma aragno waa baalkan guriga laga xigay iyaga sidoo kale marka shaqada aragtay ku shaqeynay 45 daqiiqadood ka 25 daqiiqo ayaa lagu wada afray oo dadka ku jira kori hoosna ana fuuqi casho aan socodkiisa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم quba waa
faa'iidooyinka yani bisha ramadaan ummadda yani aan ka helayno waxaa ka mid ah afurka iyo maalmaha u dambeeyo ictikaafka halkan lagu qabanayo suxuurtii iyo wixii oo dhan halkan lagu samaynayo marka ummadeennii maanta meel hoy ay yimaadaan dhibaatooyinkoodii culammadii halkan yani tuban oo dee wixii su-aala mise wixii yani tala ah laga helaya mar walba yani heegana oola ah ummaddii inay ka qayb qaataan sidii yani dee wax wanaagsan ay u qabsan lahaayeen marka alxamdulilah runtii faa'iidooyinka masaajidadan khaasatan masaajidka quba laga helay intii dee la asaasay lama koobi karayo insha allah ramadaanka maasha allah masaajidka aad iyo aad ayuu camiran yahay from beginningkii ramadaanka insha allah waxaa jirta in masaajidka aad loo buuxiyo xawaaligan oo dhan lagu tukado meelaha dhan lagu tukado especially habeenkii maalinkii jumcada oo kale even salaad subax waa waxyaabaha aad u yaab kale waxaa ka mid ah in waa taariikhda markii ugu horeysay oo masaajidkan oo ilaa hadda 2006 ilaa hadda furan banaanka salaad subax lagu tukado macnaha waa filallahi alxamdu wax aad u weyn way macnaha اعتكاف ahaan waxaa ku jira masaajidka ilaa ay 50 ilaa 60 qof ayaa ku i'tikaafaya masaajidka oo dad shuyuuqa leh oo imaamkii leh oo rag mas'uuliyiin leh oo dhalinyaro leh oo odayaal leh oo gabdho leh intaas marka waxay ku tusinaysaa meesha hawsha ka socota quba ramadaanka waa aad u biisi u yahay waxyaalo badan oo uga duwan yahay waxaa ka mid ah i'tikaafka oo anigu hadda ku jiro waxaa ka mid ah salaada taraawiixda waxaa ka mid ah suxuurta waxaa ka mid ah maxaan ku iraa afurka oo intaba lagu diyaariyo masaajidka quba oo dad aad iyo aad u badan ay maxaan ku iraa ay ku soo xirmaan waqtiyada ramadaanka masaajidku waxaad moodaa yani wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood buu shaqeeyaa albaabkiisa lama xiro ilaa maalinta ramadaanka ugu horeyso ilaa maalinta ugu dambeyso ciidda laga gaarayo lama xiro waxyaalaha aan loo xirno waxaa ka mid ah afur baa lagu sameeyaa oo aad aragteen afur yani aad cajiib u ah oo hadda la sameynayay ilaa muddada intuu furnaaba la sameynayay laakiin iyada ruuxeeda afurkaas mar walba sanadka ka dameeya waxaa lagu sii sameynayay waa lasii horumarinayay oo aidiyooyin badan iyo fikrado badan oo markaa sanadka gudihiisa lasoo helaa lagu sii darayay sanadkan afurku waa ballaaran yahay 200 ilaa 300 qof baa ka afurta galab walba sidoo kale tahajjud baa lagu tukadaa taraawiix baa lagu tukadaa dadaa waxay yimaadaan afurka waxayna ka tagaan salaada subax ayagoo intaa jooga afurkoodii ka helayo suxuurtoodii ka helayo ku cibaadaysanayo taraawiixda iyo tahajjud intaba ku tukanaya marka waxaan is leeyahay bilaha kale wuxuu uga duwan yahay waa jaanis qofka uusan ka helayn masaajida kale aan is leeyahay aanay Soomaalidu maamulin Mm-hmm.